ciidamada daraawiishta Jubbaland ee ku sugan degmada Doolow ayaa howlgalo amni xaqiijin ka sameeyay deegaano hoos yimaada degmadaasi kuwa oo lagu beegsanayo maleeshiyaadka khawaarijta. Howlgalkan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xaqiijinayo amniga iyadoona bulshada ay isku diyaarinayso munaasabadda ciidda. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ujeedada howlgalka ay tahay ka hortagga wax kasta oo carqaladeyn kara farxadda iyo nabadda ay haystaan shacabka. Taliyaha amniga degmada Doolow Maxamed Xuseen Buule oo hogaaminaya howlgalkan ayaa sheegay in ciidamada daraawiishta ay sii wadi doonaan howlgallada amniga lagu xaqiijinayo si shacabka ku dhaqan degmada iyo deegaanada ku hareeraysan ay ugu noolaadaan nabad iyo xasilooni waarta. Saraakiisha ayaa sidoo kale ugu baaqay bulshada inay la shaqeeyaan ciidamada amniga islamarkaana ay soo sheegaan cid kasta oo looga shakiyo falal amni darro si loo xaqiijiyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga.